diyaaradan ayaa siday gargaar bini'aadanimo oo loogu talagalay xarumaha lagu daryeelo carruurta ay nafaqa daradu hayso ee degmada Garbahaare ayaa subaxnimadii saaka ku dhacday garoonka diyaaradaha degmadaasi. diyuuradan ayaa lagu soo warramayaa inay siday buskud iyo raashin kale oo loogu talagalay carruurta ay nafaqa daradu hayso. diyaaradan ayuu soo gaadhay burbur xoogan qaybo ka mid ah sida ay dad goobjoogii warbaahinta ay u sheegeen. diyaaraddu waxay urnayd hay'adda WFP waxa ay gargaar caawimo u siday xarumaha carruurta nafaqa daradu hayso. diyaaraddu waxaa saarnaa 2 qof oo ku jira bayloodkii diyaaraddaasi saarnaa, taasina ay ku kaliftay inay diyaaraddu la kulanto dheelitirka ayna ku soo dhacday meel ka yara fog dhabaha diyaaraddu ay cagaha soo dhigtaan. kala kulmeen dhinaca dabaysha kadib mid ka mid ah baalasheedu ay dabayl xooggan ay soo waajahday, taasina ay sababtay in ay diyaaraddu dhulka ay ku soo dhacdo. waxay sidoo kale diyaaraddu ku dhacday dhagax weyn oo difaac u ah ciidamada ilaalada u ah garoonkaasi. sidoo kale diyaaraddu waxay ka burburtay qaybo badan, haddana bayloodkii iyo qofkii kale saarna waa ay bad qabaan. waxaana mas'uuliyiinta degmadu ay sheegeen raashinkii ay diyaaraddaas saarnaa in laga daadguraynayo aanay waxba qabin. xamse xirsaxayd, Saab TV, Hargeysa.